بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا مركلة channel كيني اها توسين تقراتكي برشادة حكمة ولا شيني اسمها قليب وما انت idin sidaa barashada nafteena waa maxay barashada naftaada qofka binu aadanka waxa ugu qiimaha badan uu ilaahay siiyay waa maanta uu adduunyada joogo waqti ayaa la soo siiyay fursad ayuu ilaahay soo siiyay ujeedo ayuu ilaahay ku soo diray laakiin haddaa luntid ruuxdaada lunto oo u malaysid adigu inaad korkaan tahay aad korkii ku mashquushid maxaad kala kulmaysaa korkaan horta adigu ma aha korkaan adiga matiid waa lagu soo siiyay waa qalab lagu soo siiyay haddaad qurxoon tahay haddaad foolxun tahay waxaad ahaatid wixii qurux ku leh iyo wixii foolxumo ku lehbo aday ku taalaa laakiin waqtigayna badanaa waxaan ku bixinaa korka ma aha matiid korka markaad dhimatidne korkaaga halkaasaa lagu duugayaa waa lagaa tagaayaa dadkina way kaa tagaayaan ruuxdaadana waa la qaaday markii ruuxdaada la qaadayna qof ujeeday male waa un la qaada naftaada way baxday xagee aaday maxay ku dambeysay aakhirase markii lasoo istaajiyo maxay la kulmi doontaa markase maanta waxaan ka hadlaynaa adduunyadan aan maanta ku suganahna barashada qofka binu aadanka nafsadiisa iyo ruuxdiisa inuu dhaadhaco uu nafsadiisa bartaa qiimaha ay leedahay qiimaha uu leeyahay qofka binu aadanka wuxuu noloshiisa dhan dhismanaysaa ee muhiim noqonaysaa asaga inuu nafsadiisa bartaa barashada koowaad waa inuu qofka binu aadanka asaga isbartaa barasho kale wax kuuma tarayso xataa ilaahay ma baran kartid hadaad adiga nafsadaada ka siinin anaga maanta waxaa sheeganaynaa islaamaan sheeganaa maanta laakiin in sida xaqa ahayd iyo sida ahayd maxaa yeele waa naloo soo gudbiyo waan qaadanay laakiin wax oo adiga ka shaqaysay oo shaqsi ahaan meel la fariisatay ruuxiyadaada ka fikirtay oo ilaahay ku baratay oo ku raadisay oo ku dhaqantay oo ku fikirtay oo nimcooyinka ilaahay aad u fiirisay manihin u badnin badanaa waan dhaxalnay marka waxaa maanta rabaa inaa idinla wadaago qofka binu aadanka nafsadiisa inuu barto qiimaha ay leedahay uuna asaga korkaan ahayn uu yahay ruux lana qaadi doono qiimahana ay tahay ruuxda oo qurxoonaata oo korkaaga degtaa ruuxdaada korkaaga se xagee ka degaysaa ruuxdaada wax la arki kara ma aha laakiin waa wax energy ah waa wax ilaahay uuna arki karo anaga uma jeedno korkayna ku jirtaa markaa dhimanana qof kasta oo dhimanaya la ag taagan yahay markay ka baxayso ruuxda lama arkaayo laakiin binu aadanka korkaaga quruxdiisii iyo qiimahaaga adduunye iyo aakhiraba waxay ku salaysan tahay ruuxdaada oo korkaaga si fiican u deganaataa oo ahaataa qof indhihiisii maskaxdiisa iyo wadnihiisana isku xiran yahay daacad qof ilaahay aan u sharig yeelin daacad kow naftiisa dadkiisa iyo ehelkiisa dhammaan dadka oo dhanna simaa ahaataa shaqsi madax banaan meel wax laga siiyaa ku shaqeyn qiimahaaga iyo tayadaada ma jirayso oo waad dulooweysaa waad dayacmanaysaa waad dhiigaysaa waa cabaadi doontaa waa yeeli doontaa waa eedeyn doontaa waa dacwoon doontaa waa colaadin doontaa waa ma cafin dooniyaa dhihi doontaa waa colaad ii fara badan iyo dhibaato fara badan sida aan maanta soomaalida maanta ku noolnahay haddaa laakiin colaadaas iyo dhibaatadaas iyo oohintaas iyo waxaas dhan sidee uga bixi kartaa iyo dhibaatadaas dhan kow nafsadaada helaysaa nafsadaada marka heshidna ruuxdaada heshid oo naftaadii iyo ruuxdaadii korkaaga dhex gelisid ruuxdaadii oo adiga korkaaga ku dhex jirtid oo adiga ka dhex hadlayso ruuxdaada hadlayso oo shayaadiinta korkaaga ka saartid shayaadiinta ayaa korkaaga ka saaraysaa shayaadiinta cilmiga shayaadiinta korka looga saarayo anaga dhan hadeertaan qof kasto maadaama ego weyn nagu jiro qab fara badan iyo shaydaan waa egoga waa shaydaan nagu jiro qof kasta wuxuu leeyahay anigu haa shaydaanku anigu waa ka cudubleystaa laakiin camalkeena oo dhan markaa ku noqono waa shaydaan idima dhahay aniga kuma jiro marka shaydaanka markaa ka guuleysano oo egogaaga dishid dil egogaaga ku talagal egogaaga inaad dishid ego camalkiisa soomaalidu egoga aad uma fisiraan oo laakiin shaydaana u naqaana laakiin camalo badan oo wanaag u maleyna ayaa egoga waxyaabo fara badan oo wanaag u maleyna waa shaydaan laakiin waxuu marka see ku kala garan kartaa si adiga nafsadaada u heshid waa inaad koog shaydaanka korkaaga ka saartaa
korkaaga adiga degtaa ruuxdaada degtaa adiga ku noolaanatid maxaa yeele adiga balanaya ilaahay la soo gashay adiga balanaya ilaahay la soo gashay biri markaa dhimatina qof qabriga kuu raacayo male qof kula socon doono male marka wax ku badbaadin doonana male qof oo ilaahay kaa celin doono biri kamaala male marka qabriga lagu geeyna kaligaaga lagaa soo tagaa marka si uu qofka binu aadanka uu u badbaado adduunyadiisa iyo aakhiradiisa waa in uu korkiisa shayaadiinta ka saaraa shayaadiintana waa camalada oo dhan wax kasta oo camala iyo wax kasta aad samaynayso waa inaad dhadhamisaa waa inay ahaataa wax saafiya oo nadiifa oo ilaahay raali ka yahay oo shaydaan ka nuxnuxsanaynin barashadeeduna ma dhib badno hadaa raadisid way sahlantahay laakiin haddii kale way adagtahay oo shaydaanka ayaa korka degan aad ayay kugu adkaanaysaa markii lagu sheego camalkaas aa weligaa wanaag ku milayn jirta xataa inuu shaydaan yahay ma qaadi kartid maxaa yeele shaydaankiyaa xoog kugu degan maxaa yeele waxyaabo fara badan oo wanaag u maleeno oo faan ah waa shaydaan faanka shaydaanu ka ahaaday muxuu ahaa qabiilka inuu qofka caadi u maleeyo anagu ree hebel anaga kanaanahay anaga dhan waa shaydaan qabiilka lagu faantamayo waa shaydaan waxa kaloo shaydaan muxuu ahaa maanta dhan inaa adiga isla weyn tahay inaa xanaaqaysid oo leedahay sidee aniga waxaas la ilahay ma anaa mutaysan inaadan dadka cafinaynin waa shaydaan adiga camaladaas farada badan markaad dishid waxaad helaysaa waqti aad adiga korkaaga adiga dhex degantahay ruuxdaada maskiinta ahayd ee cagaha hoostood iska joogi jirtay ama meelay jirtayba wallahu yaclam iska rafaadsanaan jirtay ayaa kor usoo kacayso wadnahaaga imaanaysaa ruuxdaada markay wadnahaaga degtana korkaaga adiga ayaa lahaanaysid ka horna shaydaan ayaa lahaa ismahaan waa idinka yaabisa maanta korkaaga ka hor shaydaan ayaa lahaa korkaaga si aadi u lahaatid kow shaadiinta waa inaad ka saartaa waa inaad iigogaaga dishaa waa inaad soo socotaa kor usoo socotaa sa usoo socotaa kor markaad timaadid naftaadii cagta hoosteeda kasoo qaadaysaa wadnahaaga ayay imaanaysaa naftaadii wadnahii degaysaa marka wadnahaaga naftaada degtane oo dadka waa cafiyey ayaa leedahay qofna xuma qabaysid hadduu ku jecel yahay iyo hadduu ku necab yahayba kuma kala duwana maxaa yeele adigu waa jeceshahay hadduu ku caayo iyo hadduu ku cadaabo iyo hadduu ku dhibaateynaayaba adigu ma kala jeclid maxaa yeele adigu waxba kaama samayn karaan waxaa aaminsantahay allah malaa'igtiisana way kula jirtaa subxaan allah arinku waa cajiib marka waxa waaye marka aan ka hadlaayo arrinkan oo qofka binu aadanka in uu wadnihiisa ku dhex noolaadaa ee waxa waaye arrin cajiib ah waaye marka walaalayaal qaaliyaal qalbi uroonayaalo marka aad nafsadaada baratid oo xumaanta ka saartid oo shaydaanka ruuxdaada korkaaga ka saartid oo korkaaga aadi lahaatid ee ruuxdaada soo socoto ee ruuxdaada lugaya iska joogi jirtay waa iska dayacnayd maskiinta lugaa dhulka cagaha ku saari jirtay kasoo baxdo soo socoto wadnaha timaado degto wadnahaagii nadiif noqdo daacad noqotid nadiif noqotid xasad xiqdi balaayo maseer dulmi isku dir kala yeel in lagu diro inaa adiga dad dirtid inaa kan yeeshid inaa geem cayaartid inaa adduunyo heshid inaa kan heshid inaa waxaas dhan kaa haraan subxaan allah markay waxaas dhan kaa haraan oo adiga naftaada lahaatid adduunyadaada iyo aakhiradaada waxay noqonaysaa nabadgelyo waa nabadgalaysaa adduunyadaadana waxay kuu noqonaysaa wax sahlan oo caafimaad ah oo si sahale oo nabad ayaad ku noolaanaysaa xanqaltaag iyo adduunya daba orod kuma jiraysid waxaa noqonaysaa qof isku qanacsan haddii lagu caayo iyo haddii lagu ammaano kuma kala dubano haddii lagu jeclaaday haddii lagu nacana kuma kala dubano haddii oo dadka ku wada hiiliyaan iyo inay ku wada nacaanna kuma kala dubano maxaa yeele labadaba alxamdulilah ayaa leedahay maxaa yeele kalsooni dhaba ayaa ruuxdaada iyo korkaaga taale ilaahay ayaa jeclaatay muxuu ahaa qof daacad ayaa noqotay ilaahay wuxuu kaa rabay oo waajibaadkii dhan waa soo samaysay naftaadii ayaa ka shaqaysay anaga maanta waxaan u malaynaa in qofka 5 salaad uu tukado kali inay tahay islaamnimada saas ma aha islaamnimadu waa mid koowaad waa inuu qofka binu aadanka korkiisa shayaadiinta ka saaraa shayaadiinta markaa ka saartid maxaa yeelay ilaahay uma shariig yeelaysa laakiin maalintii wax badan ayaa ilaahay u shariig yeelnaa waa ka heebaysanaa dad ayaan ka heebaysanaa dadna waa hoos marinaa dadka qaarne allah iyo waajibaadkiina saara ayaan ka hormarinaa marka walaalayaal qaaliyaal qalbi uroonayaalo raaxaysta ayaan idin leeyahay cashirkan muhiimka walaashin ismaha idiin soo saartay waa inuu mar kale iyo channelkeeni ahaa toosinta garaadkii barashada xigmada bal sii gaarsii walaalahaaga baro naftaada oo daryeel naftaada u hiili naftaada u hagarbax naftaada
qof daacad naftiisu aa kadib ayaa daacad u noqonaysaa dadka kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.